Maanta halkan ku tartami doono labo fasal oo kala ah fasalka sagaalaad ee dugsiga sare iyo fasalka lixaad ee dugsiga dhexe. Tartankan ayaa waxa uu yahay tartanka wareegoodii labaad ay isku arkayaan fasalada ee kooxaha dugsiga hoose dhexe sare Alwaasi. Waxaan rajaynayaa labada galaas inay diyaar yihiin si aan u guda galno tartankeena. Waxaan ku furfuran doonaa aayaadka Quraanka Kariimka ee qolka Eebe waxaana inoo akhrin doono Anas Farax. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آيات القرآن الكريم كيقول كيبه وحا أي دافر وهايين برامج كيني ترتنا قونات كعلمكال سنة دوكسيات كلاود كن لاتني أفر لاود كن لاتي شن لاود كن لاتي لح أجري حسنات على سوكو بكرين الله كسيو إننا الله نجديو كوي كوا نقاطة كنا عمل فلا barnaamijkeena ayaan sii guda galaynaa labada fasal waxaan ka codsanaynaa inay soo dirsadaan min hal si aan u ogaano astaan bilowga su'aalaha جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. سؤالا waxa lagu bilaabayaa fasalka form 1 ama fasalka sagaalaad imtixaanka intuu socdo waxa reeban qof telefoon buug iyo su'aasha qofka ka jawaabo gadaal qofka kale uu ka sheego su'aasha totally waa cancel waa su'aasha duu qofka sheegay qof kale gadaal ka sheego totally su'aasha cancel waa marka arday kasta waxa laga rabaa nidaamka tartanka inuu ilaaliyo su'aasha waqtigeedana lagu ilaaliyo su'aasha waqtigeeda doo ku dhaafo saasi ka gudbaysa marka su'aasha waqti marka lagu weydiiyo waqtigeeda ku ilaali nidaamka tartankana ilaali insha Allah waa tahay tartankeena ayaan sii guda galaynaa fasalka sagaalaad ayaana ugu horeeyo maadaama uu qaatay astaan bilowga su'aalaha xarafka ah dhigina fura su'aashani waa su'aal carabi ah waxay u dhacaysaa sidatan kayfa kana khuliqa ar-rasuul sallallahu alayhi wa sallam mar labaad kayfa kana khuliqa ar-rasuul sallallahu alayhi wa sallam waxaan rajaynaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doontiin biidhnillah أنا مقعي أمل عبد الله نور أكوس على فصل كفوان سؤال جاوبت الإسكوديو خلوق بالقرآن الكريم. su-aashoodii koowaad guud ahaan tartanka una ahayd su-aashoodii ugu horreysay ee fasalka form 1 lana weydiiyey su'aal carabi ah saxiix qalad guddiga su'aasha la weydiiyey oo carabiga ahayd fasalka sagaalaad jawaabtii ka bixeen waa mid sax ah 2 dhibcood su-aashani waa su-aashii labaad guud ahaan tartanka una noqon doonto su-aashoodii koowaad ee fasalka lixaad dhigiina fura waa su'aal carabi ah waxay u dhacaysaa sidatan ma diinul islaam mar labaad ma diinul islaam marka ugu dambayso ma diinul islaam waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doontiin biidhnillah أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو مقعي أنيس فارح حسين سؤاشا وكسو جيبسل كالعاد سؤاشا جوابت تاسكت الإسلام دين العلم وعمل اللي يجب أن يتعلم كل من الإسلام دين العلم وعمل اللي يجب أن يتعلم كل علم ليكون مثقفا واسع المغفرة لدينه ودنياه حتى ينشأ فردا مسلما صالحا قادرا على أن يدافع على أن ينفع نفسه وأسرته وأمته مستطيعا أن يدافع عن دينه عن دينه عن دينه عن دينه يدافع عن دينه ويعمل على إعزازه
وهجاج وحأملينا إن عبارة يكون فتي سؤاشي لبعض جودهان ترتن كائنا أي هاد سؤاش ودي كوباد أين أو هاد فصل كل حاد وأنا عربي هاد وندعي سيمد ما الإسلام ما الدين الإسلام جواب تيكب بحيان فصل كل حاد صحيح قرد هنو قد بيا قد عن سنت فصل كاس جوابتي كبيحين سؤال شيء ويديو عربي وسؤال صح لا ودعو أشي سدحات جودهان ترتنكا وننقد أنت سؤال شو ذي لبعض فصل كه فمن وأنا سؤال عربي وحين أقول عيسى سدة ما جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة ما جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة marka ugu dambayso ma jazaa'ul mu'miniin 'inda Allahi yawm al-qiyamah waxaan rajaynaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doontiin biidhnillah. Assalaamu alaykum magacayga waa Axmed oo ku soo jeedo fasalka koowaad su'aasha jawaabteeda isku dayo aljanna su'aashii saddexaad guud ahaan tartanka una ahayd su'aashoodii labaad ee fasalka form 1 una dhacaysay ma jazaa'ul mu'miniin عند الله يوم القيامة جوابتي كبحيان صحيح قلت قدية فصل كاس سؤال شلويدي جوابتي كبحيان ومد صح أو دبعون سؤال شني وسؤال شي أفراد جودهان ترتنكا ونا نقد أنتو سؤال شو ذي لبعض فصلك لحاد وأنا سؤال عربية وحيود عيسى سدة ماذا يكره الإنسان ماذا يكره الإسلام لأبنائه مرلبات ماذا يكره الإسلام لأبنائه مركا ugu dambayso ماذا يكره الإسلام لأبنائه waxaan rajaynaa inaad garateen oo soo racli doontiin insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم يجيبوا يا قراءة ساق اسمه فصل كسول الحاد هذا سؤال جوابت ويكره دين الإسلام يد الفارق ترك إلى الكسل ويكره دين الإسلام ويكره دين الإسلام يد الفارق ترك إلى الكسل ويكره دين الإسلام يد الفارق ترك الكسل. su-aashaasi waxay ahayd su-aashii afraad guud ahaan tartanka una ahayd su-aashoodii labaad ee fasalka lixaad waana su-aal carabi ah jawaabtay ka bixiyeen saxiix qalad guddiga fasalkaas su-aasha la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax laba dhibcood tartanka waxaa u malaysaa maanta in lasmari la'yahay oo fasalada xamaasadooda ay wadataan marka waxaan rabnaa jamaahiirta meesha fadhido inaan ra'yigooda aan aragno fasal qof walba meesha fadhiya fasalka uu taageerayo marka jamaahiirta waqtigan sii doonaa idinkan sii diyaar garow insha Allah waxa inoo xiga maadada Englishka su'aashani waa su'aal English ah guud ahaanna waxay noqon doontaa su'aashii shanaad ee guud ee tartanka fasalka form 1 una noqon doonto su'aashoodii saddexaad dhagiina u fura waa su'aal English ah Divine Bank marka ugu dambayso Divine Bank waxaan rajaynaa inaad garateen oo soo warceli doonto insha Allah aniga Mariyan ali ku soo jeedo fasalka form 1 su'aasha jawaabteeda hadaa isku dayo banks do two things for us it keep our money safe banks do two things for us it keep our money safe waa tahay su'aashii la weydiiyey fasalka form 1 oo ahayd su'aal English ah jawaabta ay ka bixiyeen saxiix qalad guddiga su-aashii la weydiiyey fasalka form 1 oo Ingiriiska ahayd jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax laba dhibcood su-aashani waa su-aashii lixaad guud ahaan tartanka una noqon doonto su-aashoodii saddexaad ee fasalka lixaad waa su'aal English ah dhagiina u fura waxaa idinka rabaa inaad luqadda Ingiriiska aad u bedeshaan aan iraade luqadda af Soomaaliga u bedelaysan jumlad soo socoto be smart waxaa idinka rabaa inaad af Soomaali u bedeshiin insha Allah أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم يجيبوا يا قراءة ساق اسمه فصل كذا الحاد سؤال جوابتي تاسكو نقوق في عقل الله marka casharka si fiican u akhriso su'aasha ku raaxaysay mugtay dhimalaan su'aashii la weydiiyey fasalka lixaad saxiix qalad guddiga fasalka lixaad su'aasha la weydiiyey ikhra su'aal adeeg jawaabtay fasalkaas su'aasha la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax
laba dhibcood. waa tahay maanta waxaa u malaysaa inaan la kala haraynin fasalka lixaad iyo fasalka form 1 kolley ciyaar waa gelin dambe waa arkaynaa dhib malaa meesha ay ku dhammaato su-aashani waa su-aal English ah waxayna ku wajahan tahay fasalka form 1 dhegihiina u fura divine verb and give two examples of verb dhegihiina u fura waa mar labaad divine verb and give two examples of verb. Yes. Marka ugu dambayso divine verb and give two examples of verb. Harajayna inaad garateen aan ugu soo warceli doonto insha Allah. aniga Maryam Ali kana socod fasalkan boobo su'aal jawaabteeda isku day verbs words that are used to express an action. Example eat, play. Verbs are words that are used to express an action. Eat, play, read, write. Verbs are words that are used to express an action. Example kedana yahay play, read. su-aashii la weydiiyey fasalka form 1 oo ahayd su-aal English ah jawaabtay ka bixiyeen saxiix qalad guddiga. Form 1 su'aasha la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah laba dhibcood. waa tahay su-aashani waa su-aal English ah waxay ku aadan tahay fasalka lixaad ee dugsiga dhexe dhegiina u fura waa su-aal English ah waxay u dhacaysaa sida tan who is Mayo mar labaad who is Mayo marka ugu dambayso who is Mayo waxaan rajaynayaa inaad garateen oo nagu soo warceli doontiin insha Allah. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعد عن سفارة وسؤال جوابتي هذا اسكودة Mayo is a student in a standard 5. Mayo is a student in a standard 5. Mayo is a student in a standard 5. su-aashii la weydiiyey fasalka lixaad saxiix qalad guddiga. Su'aasha la weydiiyey jawaabtii ka bixisana waa mid sax ah laba dhibcood. ما شاء الله فصلك اللحاد ألف مبروك أيان لنا هاي وحاكو حيقو فصلك سيالات دقينا أفرا وسؤال كيمستري دقينا أفرا divine chemistry مر لباد divine chemistry مركا أقدم بيسو divine chemistry وحارجينا إناد قرتين ونقصو ورعلي دونتين إن شاء الله. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي سليمان محمود ليان كنص على فصل كايفون. سؤال جواب تدا سكودا chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, properties and reaction of matter. سؤال شيء اللي ويدي فصل كا form 1 صحيح غلط جوديا. fasalka form 1 su'aasha la weydiiyey oo chemistry jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah laba dhibcood. su-aashani waa su-aal saynis ah waxayna ku wajahan tahay fasalka lixaad dhegihiina u fura waa maxay dulin gudeed waa maxay dulin gudeed marka ugu dambayso waa maxay dulin gudeed waxaan rajaynayaa inaad garateen oo nagu soo warceli doontiin biidhnillah. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعد عن سفارة وقصدي فصلك لحد سؤال جوابتي هذا اسكودة دولين جدود ودولين كونول وقد جيرك نولها ama sooraha. su-aashii la weydiiyey fasalka lixaad ahaydna su-aal saynisa una dhacaysay waa maxay dulin gudeed jawaabta ay ka bixiyeen saxi qalad guddiga. fasalka lixaad su'aasha sayniska la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen guud ahaanba ma ahan mid sax ah guud ahaan maba ahan mid sax waa mid qalad ah. haddaba hadday soo hareer martay fasalka lixaad jawaabta ayaan ka sugnaa guddiga aan dhageysano jawaabtu saxda insha Allah si aydan idin hareer marin wareegyada soo aadan ama meelaha kale aad ku arki doontaan su'aashan oo kale ah. dulinka laba loo qaybiyaa dulin gudeed iyo dulin dibadeed loo qaybiyaa. dulin gudeedku waa noolo ku nool gudaha noolaha kale gudaha noolaha dulin gudeedku ku nool yahay. dulin dibadeedkuna wuxuu ku nool yahay dibadda noolaha kale saas darteed gabartaan way isdaba marsid waxay ka jawaabtay dulin dibadeed dulin gudeed ayaan la weydiiyey dulin dibadeed ayna ka jawaabtay saas darteed dulin dibadeedku waa noolo ku nool oogada noolo kale
dulingudeedkuna waa noolo ku nool gudaha noolo kale saasuu kala duwan yahay insha Allah wax filan inaad jawaabta fahanteen fasalka lixaad iyo qaybaha kale ee ardayda waxaan rajaynayaa inay jawaabta si waafi ah u fahmeen meelaha kale ay ku arkaan insha Allah eedan idin hareer mari doono insha Allah su'aashani waa su'aal juqraafi ah fasalka 9aad ama fooman dhigina oo fura muxuu ka hadlaa juqraafiga dabiiciga ah mar labaad muxuu ka hadlaa juqraafiga dabiiciga ah su'aasha u shay ugu jawaab muxuu ka hadlaa juqraafiga dabiiciga ah waxaan rajaynayaa inaad garateen aan ugu soo warceli doonto insha Allah anigoo magacayga Suleymaan Maxamuud Liyaan kana socda fasalka fooman su'aasha jawaabta hadaa isku dayo juqraafiga dabiiciga ah wuxuu daraasayn ku sameeyaa muuqaalada dabiiciga ah ee ku aadanaa la xiriira ee laga helo dhulka dushiisa haday noqon lahayd filiqsanaantooda ee xiriir isdhaafsiga ka dhaxeeya hagaag su'aashii la weydiiyey fasalka fooman aheedna su'aal juqraafi ah una dhaceysay muxuu ka hadlaa juqraafiga dabiiciga ah jawaabta ay ka bixiyeen su'aashaasi haday tahay mid sax ah iyo haday tahay mid qalad ah insha Allah aan ka dhowrno guddiga ansixinta tartanka fasalka fooman su'aashii juqraafigeeda la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah 2 dhibcood su'aashani waa su'aal cilmiga bulshada ah waxayna ku wajahan tahay fasalka 6aad ee dugsiga dhexe dhagiina ufra waxay u dhacaysaa su'aasha sidatan waa maxay qoys mar labaad waa maxay qoys marka ugu dambayso waa maxay qoys waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doontiin biidinillah waxay qalad jawaabta ay bixiyeen u gudbiyo guddiga ansixinta fasalka 6aad su'aasha la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah 2 dhibcood su'aashani waa su'aal juqraafi ah waxaana iska leh fasalka fooman dhagiina ufra waa su'aal juqraafi ah sheeg buugaagta ay lahaayeen aqoon-yahanadii muslimiinta juqraafiga ugu caansanaa mar labaad sheeg buugaagta ay lahaayeen aqoon-yahanadii muslimiinta juqraafiga ee ugu caansanaa marka ugu dambayso sheeg buugaagtii ay lahaayeen aqoon-yahanadii muslimiinta juqraafiga ugu caansanaa waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doontiin biidinillah المسعود على كتاب مجلس الإرادة مروج الذهب ومعادن الجوهر الإدريس كتاب الله كتاب الإرادة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق هي ابن بطوطة على هاي كتاب الإرادة نزهة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار أشي لو يدي فصل كفومان أهد سؤال جغرافيا ونادع عيسي sheeg buugaagtii ay lahaayeen aqoon-yahanadii muslimiinta juqraafiga ugu caansanaa jawaabta ay bixiyeen fooman saxi qalad guddiga fasalka fooman su'aasha juqraafiga la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah 2 dhibcood shani waa su'aal cilmiga bulshada ah waxayna ku wajahan tahay fasalka 6aad dhagiina u fura su'aashu waxay u dhacaysaa sidatan waa maxay kaalinta qoysku uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda mar labaad waa maxay kaalinta qoysku ee uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda marka ugu dambayso waa maxay kaalinta qoyska ee uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doontiin biidinillah عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مدعي عبيد عبد الله الساقي فصل كل عاد كسوجي سواشة عند السكود ويسك أهمية وين هذه كلها بالشدة لحد ولا سيدا إلى لين تفرع يعبتيس النمدا سؤاشي لو يدي فصل كاللحاد أهدنا سؤال علمي بالشدة وندعيسي waa maxay kaalinta qoyska ee uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda jawaabtay ka bixiyeen 6aad saxi qalad guddiga fasalka 6aad su'aasha la weydiiyey oo ahayd cilmi bulshada jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah 2 dhibcood waxaan maraynaa gabagabada tartanka waxaa inoo harsan hal maado intaana maadada fiisigiska aan u gudbin waxaan rabaa inaan arko jamaahiirtana daawanaysa waxa ay tartanka ay ka rajeynayaan labada fasal ay maanta tartamayso haye hal arday aan rabnaa hal arday oo maanta taageero ah oo fasalka uu taageeray halkan uu ku cadeeyo mowqifkiisa ku aadan tartanka haye waa soo dhawaan kartiin okay gabadhan loo sacbiyo ma sha Allah marka hore waxaan ku bilaabaysaa magacaaga fasalka aad ka socoto kadib fasalada meesha noo taagan maanta waa 6aad iyo fooman yaa is leedahay inuu maanta badinayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو مجيء بلا رهام علي حسين آذن
oo ka socda fasalka afraad fasalka meeshan waxa ku leysana fasalka lixaad okay waa fasalka lixaad fasalka lixaad fardo la isku hayo la isku ma faanshaa la yiri meesha waxba u jeednaa fasalka lixaad okay oo arkayna maadadan soo socota hadii lagu kala bixi doono in kale ay fasal kale oo taageeray foomana duu jiro am arday kale oo dhiibanay dareenkiisa ku aadan tartanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ana magaciisa Abdisaaq Bashiir fasal ka socda fooman ayarjinayna maanta rayaan guul orjinaya fasalka lixaadna maanta ina harana raba okay waa qolada tartamaysa marka laga reebo banaanka tartanka la ka socda ayagana insha Allah cid badisa arkayna waxa inoo xigo maadada physics-ka maadadan waa su'aal physics-ka waxayna ku wajahan tahay fasalka fooman dhigiina fura what is velocity yes what is velocity waxa rajeynaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doontiin insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha jawaabteeda isku dayo how velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a time direction in a given direction. Okay, su'aashii la weydiiyay fasalka form 1 aheedna su'aal fiisigiisa una dhaceysay what is the velocity jawaabta ay ka bixiyeen sax iyo qalad gudiga fasalka form 1 su'aashii fiisigiiskeeda la weydiiyay jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah laba dhibcood su'aashani waa su'aal xisaab ah waxayna ku wajahan tahay fasalka lixaad waa su'aal xisaab dhigiina u fura waa maxay urur marka ugu dambayso waa maxay urur waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad nagu soo warceli doonteen biidnillah walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo magacayga ku yahay Iqraa Abdisaaq Usmaan fasal ka socda lixaad su'aashan jawaabteeda isku day ururku waa walxo la isu geeyay oo leh tilmaamo gaar ah isla markaana si cad loo qeexay fasalkaas lixaad jawaabta la weydiiyay oo heed waa maxay urur jawaabtii ka bixiyeen su'aashaasi guud ahaanba waa mid sax ah laba dhibcood su'aashani waa su'aashii ugu dambeysay ee la weydiin doono fasalka form 1 waana su'aal fiisigiisa dhagihiina u fura what is the formula of velocity marka ugu dambayso what is the formula of velocity magacayga Suleymaan Maxamuud Liwaan kana socda fasalka F1 su'aasha jawaabteeda isku dayo velocity equal direction divided by time velocity equal direction divided by time su'aashii ugu dambeysay ee la weydiinayay fasalka lixaad ee fasalka form 1 oo fiisigiska ahayd oo laga rabay qaacidadii velocity jawaabta ay bixiyeen sax qalad gudiga fasalka form 1 su'aashii la weydiiyay fiisigiska oo ahayd formula of the velocity jawaabtii ka bixiyeen guud ahaanba ma ahan mid sax ah waa mid qalad haddii ay soo hareer martay fasalka form 1 jawaabtii oo sax ah ayaan ka rajaynaynaa inuu naga shaafiyo dhageysta insha Allah fasalka form 1 as dhageysano velocity horta waa xawaaraha waxay ku socdaan ayaa velocity lahaa velocity direction waxa la jihada la aadayo direction lahaa jiha iyo xawaarana waxba iska magelin jiha waa tusaalahan oo kale marka jiha u socotid iyo marka masaafo ku socotid isma lahan velocity waxa lagu helaa distance oo masaafe loo qeybiyo time waqtiga lagu socday masaafada la jarayo loo qeybiyo waqtigii midda kale aad iga shaafiyo meesha waxa idiga qoran d laba macno keenta mar direction loo qaataa marna waxa loo qaataa distance loo qaataa adika waxa cadeyseen mid diinay tahay direction ku cadeyseen saas darteed jawaabta aad bixiseen ma ahan mid sax ah waa mid qalad ah velocity waxa lagu helaa distance oo loo qeybiyay time waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad nagu soo aydan idin hareer mari doonin tartamada kale iyo meelaha kale aad ku arki doontiin insha Allah su'aashii la weydiiyay fasalka lixaad oo xisaabta ahayd una dhaceysay
846 oo loo qaybiyey 6 jawaabta ay keeneen ama ay ka bixiyeen ayagana waxaan rabnaa inay ku dhawaaqaan ay noo akhriyaan hal qof ay soo dirsadaan jawaabta akhriyo 846 oo loo qaybiyey 6 jawaabta saxda ah soo saarteen maxaa waay أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو مجيء قراءة ساق اسمها سؤال جواب تاس فصل سؤال هذا سؤال جواب تاس بقول أفرتني كو بقول أفرتني كو أشي لويديي فصل كل حاد أهلنا سؤال حسابه وندع عيسي 846 oo loo qaybiyey 6 jawaabta ay ka bixiyeen saxi qalad aanu gudbiyo gudiga ansixinta tartanka fasalkaas lixaad su'aashii la weydiiyey jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah tartankii guud ahaan ayaa halkaas inoogu eg tartankani waxaa ku madalsanaa fasalka form 1 iyo fasalka lixaad waxayna ku tartameen min 5 maado form 1 wuxuu ku tartamay Carabi English Chemistry Geography iyo Physics lixaadna waxa uu ku tartamay Carabi English Science cilmiga bulshada iyo xisaab maada kastana waxaa laga weydiiyey min 2 su'aalood haddii aan ku hormarno fasalka form 1 su'aalihii la weydiiyey maadada carabiga si sax ayuu u gartay Englishka si sax ayuu u gartay Chemistryga si sax ayuu u gartay Geographyga si sax ayuu u gartay maadada Physicska su'aashii koowaad way garteen balse su'aashii labaad ay hareen mareen sidaas darteeda waxay urursadeen dhibco gaaraya 18 dhibcood dhigooda fasalka lixaad iyagana su'aalaha la weydiiyey maadada carabiga si sax ay uga jawaabeen Englishka si sax ay uga jawaabeen Science-ka su'aashii koowaad way garteen balse su'aashii labaad ay hareen mareen cilmiga bulshada si sax ay u garteen labada su'aal xisaabtii ayadana si sax ay uga jawaabeen sidaas darteeda fasalka lixaad isagana wuxuu urursaday dhibco gaaraya 18 dhibcood ciyaartii ama tartankii u dhaxeeyay fasalada form 1 iyo lixaad waxay ku soo dhamaatay 18 iyo 18 oo macnaheedu yahay bareejo waxayna heleen min hal dhibcood waxaan rajaynayaa wareegyada soo aadan insha Allah inay guulo kale ay gaari doonaan intaas ayuu noogu ekaa